السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ملك السؤال جوكتان إيسك السؤال نودا ونيسان قصدا أما شيكada iminka aan doonayo inaan idinla wadaago waa sheeko dhab ah oo adduunka ka dhacday waxaan rajaynayaa 10 nolosha ku saabsan in aad ka qaadan doontaan gabagabada sheekadana waxaad ku ogaan doontaan cidda aan ka hadlayo oo ah markaa cid aad wada garanaysaan oo caan ah haddaba maxay ku saabsan tahay sheekada sheekadan waxay ku saabsan tahay waa nin oday ah oo korneyl ah kaasi oo musallafay haddii aan si kale idin kugu dhigana shiid noqday ama busaarad ay soo food saartay ninkan odaga ah waa 65 jir ku nool guri yar oo ciriiriya gaarigii uu gaari ka lahaana matoorkii waa uu duqeeyay sidoo kale waxa uu ku nool yahay markaa lacagta cayrta ah ee Mareykanka laga qaato ee loo yaqaano food stamp-ga ninkan waa uu fakaray wuxuuna ku fakaray in noloshan uu ku jiro uu ka baxo oo uu isbedel sameeyo isaga oo 65 jir ah wuxuu ku fakaray markaa sidee dadkan markaa wax uga bedeli kartaa ama maxaad sameyn kartaa oo dadka aad ku soo kordhin kartaa saaxiibadii ayuu la tashaday ninkan wuxuu aad ugu wanaagsanaa xawaashiyada lagu macaaneeyo digaaga iyo qaabka digaaga loo sameeyo oo si fiican uu u yaqaanay marka waxay yiraahdeen ka waran hadii aad digaagan aad suuq geyso ee aad dadka aad ka iibiso maqaayadaha haddaba ninkan waxa uu deganaa magaalada Kentucky ee dalka Mareykanka waa uu ka guuray kadibna waxa uu bilaabay in uu ku wareego gobollo badan oo Mareykanka ka mid ah isagoo maqaayadaha ku yaala mid walba ka dalbanaya in uu siin doono digaag bilaash ah laakiin uu ka codsaday oo kaliya in marka ay digaagaasi ay iibiyaan lacag aad u yar oo khidmad yar ah in ay markaa ay u gartaan oo ay siiyaan ninkan kuma uusan guuleysan dalabkiisii uu ka dalbanayay maqaayadaha markaa gobolada kala duwan ee uu tagay dhigihiisu ninkani waxa ay maqleen ilaa 1000 maya mar rabna ah oo waa laga diiday ninkani muusan niyad jabin arintanna maysan niyad jabin waxaana uu aaminsanaa in digaagiisan uu yahay markaa mid khaas ah oo ka duwan digaagyada kale haddaba waa uu sii waday dadaalkiisii ninkan waxa uu maqlay ama dhagihiisu ay maqleen mar labaad 1009 maya ah inta uusan maqlin haadii ugu horeysay ee markaa gooshiisa ay ahayd ninka aan ka hadlayo waa Cornel Hartland Sanders waana ninkii wax ka bedelay sida Mareykanka digaaga ay u cunaan ama ay u sameeyaan waana ninkii ugu horeeyay ee aasay Kentucky Fried Chicken taasi oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan markaa KFC oo aad wada garanaysaan haddaba sheekadan waxaan u soo qaatay dhiirigelin ahaan ninkani ma uusan niyad jabin mar walba ku dadaal in aadan niyad jabin oo aadan isdhiibin naftaadana aad aaminto dadaalkana aad badiso qofka waa uu gaaraa waxa uu doonayo marka ay dhab ka tahay isla markaana niyad jab uu iska ilaaliyo guushu waa ay ku dhowdahay waan ogahay in aad dadaal aad ku jirto marnaba ha niyad jabin hore u socda ayaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan waxaana qisadan aan u soo qaatay oo kaliya dhiirigelin ahaan Bulqaas Media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media hanaga ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii se aad tahay macmiil soo noqday ha ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan oo sheekadan ay dhiirigelin ahaan ay ugu noqoto wixii tale iyo tusaalaha iyo aaraadiina waxaad noogu soo qori kartaan dhinacyada comments-ka iyo messages-ka
هذا يا دماء سنتهين ربك هيدا نجره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.